ducadaani waa duco aad cajiib u ah qof kastana looga baahan yahay inuu ku dadaalo akhrinteeda. ducadaani waxay kulansatay fadliga adduunka iyo midka aakhira. waa duco aad u gaaban oo ka sugnaatay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam in badan ayuu ducadaani ku duceysan jiray. ducadaani waxay oranaysaa: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. allow waxaan ku weydiisanayaa hanuun, alle ka cabsi, dhowrsanaan iyo hodantinimo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii ducadaani in badan ku duceysatid waa ka aqbalayaa. maxaa yeelay waa duco adduunkaani iyo aakhira wada kulansatay. qofka u baahan in adduunkaani darajo ka gaaro, ilaahay subxaanahu wa ta'aala darajadaasi waa siinaya. qofkii aakhiro xasuusan oo rabo inuu janno galo, ilaahay subxaanahu wa ta'aala janno ayuu ka abaalmarinayaa. waxa uu yidhi caalamkii weynaa ee calaamatu sacdi, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariistee. ducadaani waxay ka mid tahay ducooyinka ugu kooban uguna waxtarka badan, waxaana ku jira weydiinta khayrka adduun iyo midka aakhiro. waxaa loo baahan yahay walaal inaad ducadaani in badan aad ku dadaashid akhrinteeda. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay kuwa inta badan tuuga. udcuunii astajib lakum. ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidaas ayuuna leeyahay. waxaa la rabaa inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan aynu tuugno. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay qofku wax weydiista, halka bini aadamkana uu nacban yahay qofku wax weydiista. ducadaani waa duco aad u muhiima. rasuulka keena Muhammad sallallahu alayhi wasallam in badan ayuu ku duceysan jiray. waa duco aad u yar. maanta markaad wadada socdid waad akhrin kartaa, waqti kasta iyo saacad kasta ayaad akhrin kartaa. waxaa la rabaa inaad ku dadaashid ducadaani. ducadaani haddii aad ku dadaashid bedel weyn ayaad dareemi doontaa. diinteena waa diin aad u macaan, qof kastana looga baahan yahay inuu jeclaado. maxaa yeelay waa diintii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay ku soo dejiyay. ducooyinkan waxay ka mid yihiin sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay adoonka inta badan barya. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuuna kugu abaalmarinayaa jannatul firdaws al-a'laa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha nagu kulmay jannadiisa. muuqaalkaani share gareey, youtube-keena subscribe saaro. haddii facebook nagala socdidna follow soo dheh. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaani. intaan muuqaali aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.